بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن صاحب يلسون دواد الدمانتي waxaan ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay xiisada soo cuslaanaysa dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe Iran oo dhulka soo dhigtay mid kamid ah gantaalada ugu casrisan ee dawladda wadanka Mareykanka duqeymo culus oo Iran goordho markaas iyadana gudaha laga geysay gudaha wadanka Iran weeyaan Israa'iil wadnaha farta ku hayso xoogga reer Yemen oo iyaguna wacd dhaar ku maray maxay tahay sababta uu dhaaranaya barnaamijka ku soo qaadan doona hadii la ka dhigo wali duqeymo culus ayay maamulka gumeystaha Israa'iil waxay ku hayeen gudaha wadanka Lebanon dagaalo ba'an oo dhinaca dhulka ayaa soconaya Donald Trump xaalka aad ayuu ugu liitay waqtigiisuna uu si dhamaanayay xaaladda maxay tahay dawladda wadanka Iran ciidan waliba si gaar ah shacabku waxa la qoraya malaayiin askar inta tirada isqortay barnaamijka ku soo qaadan doona hadii la ka dhigo aad iyo aad mahadsantiin soo dhawaada saaxiibayaal waxaag markuu ugu horeysa maamulka gumeystaha Israa'iil gaar ahaan Benjamin Netanyahu ayaa warinaya in markaas ku dhawaad 20 buundooyin iyo train dhulka hoos mara ay markaas burburiyeen ka gadal weeraro culus ay ku qaadeen gudaha wadanka Iran mid kamid ah duqeymihii ugu cuslaatan ee markii uu dagaalka qarxay 28 bishii February 2026 ayaa waxa la warinaya gudaha wadanka Iran maanta in lagu qaaday inkastoo duqeymuhu ay ahayd si weyn oo culus haddana dhinaca kale sheekooyin cajiib ayaa ku jira weerarada maanta ay qaadeen markaas ciidamada maamulka gumeystaha Israa'iil waxba cajiibka sidoo weyn loo weeranayo waxa kamid ah in ciidanka dawladda wadanka Iran ay si weyn isaga caabiyeen gantaaladii ay tuurayeen diyaaradaha dawladda wadanka Mareykanka qaarkoodna waxa laga soo tuurayay wadamada dariska sida qaar kamid ah warbaahintu ay warinayaan diyaaradaha casriga ah ee dagaalka dawladda wadanka Mareykanka ayaa si raaxo leh aanay u dhex mushaaxi karin gudaha markaas hawada wadanka Iran gaar ahaan magaalooyinka waaweyn Israa'iil Mareykanka wada jir ayaa isku dayay in duqeymo culus oo khasaaro xoog leh markaas Iran u geysta in lagu qaado caasimada wadanka Iran ee Tehran laakiin nidaamka difaaca dawladda wadanka Iran oo maanta wacdara dhigay ayaa u jiray diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha Israa'iil si baan markaas magaalada Tehran ay burbur uga geystaan qaar kamid ah khibrada ayaa warinaya in weeraradii u dambeeyay maanta dhacay ee tobanaanka buundooyinka iyo tareelooyinka isugu jir lagu burburiyay inay kamid tahay waxyaalaha uu doonayo Donald Trump inuu sheegto ka gadal markii caawa xilligu uu sheegay uu dhamaado inkastoo la warinayo booto iyo baalo xufto warbaahinta caalamiga iyo barihiisa bulshada si weyn ugu qoray madaxweyne Donald Trump ayaa hadda TikToker iyo Facebooker isku bedelay daqiiqad ayuu war markaas qoraal uu jeclaan lahaa wax inuu sameeyo hase ahaatee awoodda iyo tamartu hadda leeyahay u diiday ayuu ku qoraya bartiisa Facebook iyo barta kale through social ee uu isticmaalo madaxweyne Donald Trump laakiin dhinaca kale waxa ay sheegayaan ciidanka ilaalada kacaanka dawladda wadanka Iran ayaa iyaguna markii ugu horeysay waxay shaaciyeen in 5 kamid ah gantaalada la yiraahdo Tom Hawk ee dawladda wadanka Mareykanka ay sameeyso in ay dhulka soo dhigaan sidoo warinayo telefishinka la yiraahdo Al Arabi ee fadhigiisu yahay oo wadanka Qatar ilaalada kacaanku waxay sheegeen in ay markii ugu horeysay 5 gantaal oo kuwa dawladda wadanka Mareykanka sidoo weyn ay uga faanto ee la yiraahdo markaas Tom Hawk ama Tomahawk ay soo radeen waxa kale ay sheegayaan gantaalo kale oo sawaariikh oo waliba cruise ahna inay soo radeen markaas isla markaana ay ku soo radeen magaalada la yiraahdo markaas qarwiin meel la yiraahdo ayay sheegay inay ku soo xireen ama ay ku soo radeen magaalada magaceedu waxa la yiraahdaa markaas qarwaziin ayaa la yiraahdaa qarazin ayaa la yiraahdaa magaaladaas ayaa la gurinaya in duqeymaha ay maanta ay doonayeen maamulka gumeysta in ay markaas ka geystaan in lagu soo radeeyo inkastoo dagaalada iyo weerarada culus ay si weyn u beegsanayeen magaalooyin kala duwan oo ku yaala gudaha wadanka Iran haddana waxa la gurinaya magaalada la yiraahdo Qazwin magaalada la yiraahdo Qazwin in ay tahay mid kamid ah magaalooyinka sida weyn ay doonayeen inay u garacaan maamulka gumeystaha Israa'iil laakiin ciidanka ilaalada kacaanka dawladda wadanka Iran iyo ciidanka cirka ayaa si xoog leh u shaqeynaya waxaana la weerinayaa duqeymihii maanta ku dhacay gudaha wadanka Iran inkastoo ay ahaayeen kuwa si weyn u culus haddana hadafkii lagama gaarin laakiin dhinaca kale ilaalada kacaanka dawladda wadanka Iran ayaa iyaguna goordhow qaaday mid kamid ah weeraradii ugu adkaa kuwaas oo la gurinayo Israa'iil wadnaha inay jireen duqeymo culus oo aan naxariis lahayn ayay qaadeen ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran magaalooyinka Tel Aviv Haifa ilaa iyo sidoo kale Rashrash ayaa si dukum loo burburiyay iyagoo sidoo kale goobaha korontada iyo sidoo kale kaabayaasha kale ee bulshada iyaguna burbur xoog loo soo gaaray sida qaar kamid ah warbaahintu ay warinayaan telefishinka la yiraahdo Al Arabi ayaa waxa uu sheegaya in ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran ay si weyn wacd uga maray inay argoosi dheeraad ah sameyn doonaan inkastoo ilaalada kacaanka dawladda wadanka Iran ay markaas argoosi adag ku hanjabayaan haddana sida qaar kamid ah muxalliliintu ay weerinayaan Mareykanka iyo Israa'iil ayaa si weyn ugu niyad jabsan adkeysiga ciidanka dawladda wadanka Iran lagu daray shacabka reer Iran walow ay Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu ay jeclaan lahaayeen in malaayiin reer Iran ay banaanka u soo baxaan si markaas xukuumadda dhulka loo dhigo laakiin taa bedelkeeda madaxweynaha wadanka Iran Mas'ud Pezeshkian waxa uu sheegay muddo
toddobaad gudahood 14 milyan oo reer Iiraan inay soo diyaariyeen markaas dagaal buuxa oo ay ku qaadaan ama looga hortagayo dawladda waddanka Mareykanka dawladda waddanka Iiraan ay shacabkeedu ugu baaqday suurtagalnimada dagaal dhulka oo imaan doona waana mid keentay hadda durbaba inay isqaraan muddo 2 toddobaad gudahood 14 milyan oo qof reer Iiraan ay soo diyaarinayeen difaaca waddankooda arrintan ay si weyn ugu niyadjabeen dawladda waddanka Mareykanka iyo sidoo kale maamulka gumeystaha Israa'iil dhinaca kale haddii aynu eegnana xoogaga reer Yemen ee Xuutigu ayaa iyaguna wacd ku maray in dawladda waddanka Iiraan haddii culays tar badan la saaro iyaguna tilaabooyin adag ay qaadayaan telefishinka Al Jazeera ayaa warinaya in dhaqdhaqaaqyo culus ay wadaan xoogaga reer Yemen ee Xuutigu waxaana ay sheegayaan haddii uu qaado Donald Trump tilaabooyinku qorsheynayo iyaguna in markaas ay qaadi doonaan waxyaabo si weyn loola fajacay iyo weerarada marna aan laga malaysanaynin markaas dawladda ama xoogaga reer Yemen waxaa la wareeyay saacadii la soo dhaafay in si weyn ay markaas iyaguna isku diyaarinayaan waxaana la go'aamiyay sida la leeyahay wadamada khaliijka gaar ahaan dhinaca kale ay degan yihiin wadamada Mareykanka iyo goobaha ay joogaan iyo shirkadaha iyagu markaas ay gandaraasada ama dhaqaalaha ay ku leeyihiin dukum laga dhigo Xuutigu waxay wacd ku mareen wax lama filaan ah oo ay dunida si weyn uga ama kaagaan inay sameyn doonaan duqeymaha iyo weerarada culus khaliijka iyo wadamada nacamleeyaasha ah oo shaqaystayaasha ha joogtay laakiin waxa la wareeyay Israa'iil iyaduna iyo malqiyaameen isku bedeli doonto haddii la fuliyo markaas duqeymaha ku hanjabayo Donald Trump ciidanka ilaalada kacaanka ayaa ballan qaaday 24 saac ama saacadaha soo socda in argoosi qaraaro Israa'iil ka qomameyn doonto inay qaadi doonaan waxaana la guranayaa diyaar garow xoog leh oo ciidanka ilaalada kacaanka imkan ay ku jiraan waxa la farmuuqaya goobihii la duqey lahaa waxaana Iiraan ay qorsheynaysaa sida la leeyahay in si weyn dadweynuhu u daawadaan isla fiidkan caawa ayaa la guranaya ciidanka ilaalada kacaanka dawladda waddanka Iiraan si weyn markaas inay isku diyaarinayaan inkastoo ilaa iyo hadda weeraradu ay soconayaan dukumna laga dhigay meel badan oo ku yaala dhulka xoog lagu haysto Israa'iil ayaa hadda dareemayso mid kamid ah walwalka ugu badnaa maxaa yeelay gantaal kaga hortagto ma haysato kuwa markaas dawladda waddanka Iiraan saacado ka horna ciidanka ilaalada kacaanka dawladda waddanka Iiraan ayaa iyaguna waxay weeraro culus ku qaadeen oo kamid yahay gantaalka la yiraahdo Haji Qaasim Suleymaan ee waxay ku weerareen iyo gantaalada kale guuxda ka dheeraya kuwa madaxyada tirada badan watayada lagu weeraray magaalooyin ay kamid tahay Tel Aviv Haifa Qudus ilaa iyo markaas magaalooyin kale ku yaala dhulka xoog lagu haysto waxaana dawladda waddanka Iiraan iyo xoogaga reer Yemen iyaguna ay ballan qaadayaan jaximada uu Trump sheegayo mid ka daran inay furi doonaan waxay wacd ku mareen waxaan dawladda waddanka Mareykanka iyo Israa'iil iyo kuwa xulafada Carbeed caloosh shaqaystayaasha ah gobolka bariga dhexe jooga waxa aanay marna qorshe ku darsan inay dhici doonaan waxa khubaradu ay warinayaan in haddii dawladda waddanka Mareykanka ay isku daydo waxa uu ballan qaadayo Donald Trump xoogaga reer Yemen iyaguna dhulka dhigi doonaan wadamada khaliijka la isuguna kaashan doono laakiin dhinaca kale dawladda waddanka Pakistan waxay doonaysaa weerarka toos inay dagaalka u soo gasho iyadoo ka soo safanaysa dhinaca maamulka gumeystaha Israa'iil iyo dawladda waddanka Mareykanka sarkaalka sare ciidanka dawladda waddanka Iiraan maamulay ee Munir la yiraahdo ayaa hanjabaad u diray dawladda waddanka Iiraan waxaana uu sheegay marna in la aqbali doonin weerar lagu qaado boqortooyada Sacuudi Carabiya isaga oo ka degay weerar walba Sacuudi Carabiya lagu qaado awaaqib culus inuu ka dhashan doono awaaqibku uu sheegayo sarkaalkan jawaasiis ku ah Mareykanka ee dawladda militariga waddanka Pakistan maamulaya ayaa isaguna la wirinaya xaaladda inay ka sii dareyso inkastoo dawladda waddanka Hindiya ay sheekadaas sheeda kala socoto haddii Pakistan ay dagaalkaas isku maqiiqdana ay suurtagal tahay in xoog leh laga wareego Pakistan maadaama ciidamada militariga jawaasiis Mareykanka oo yihiin laakiin dhinaca kale dabcan waddanka Pakistan qudhiisa hadii dagaalku ka soo galo dhinaca Mareykanka maamulka gumeystuhu Pakistan waxa ku nool dad aad u tir badan oo iyaguna shiica waxayna u badan tahay gudaha waddanka Pakistan balaayada qudheeda bul inay ka dhihi doonto dawladda waddanka Iiraan ilaa iyo hadda kama jawaabin hanjabaadda ka imaanaysa markaas xogaga gumeystaha ee xogaga waddanka Pakistan inkastoo Pakistan hadda ka mid tahay dhexdhexaadiyaasha waxa lagu sheego dawladaha Turkiga iyo Masar iyo Pakistan ayaa ku jira sidii u badbaadin lahaayeen handadaadaha culus ee Donald Trump laakiin dawladda waddanka Iiraan waxay sheegtay xanqaraara lagu ma dhotiyay jiray hadii dawladda waddanka Mareykanka ay xitaa hub nuclear isticmaalayso ayay leedahay dawladda waddanka Iiraan culus walwal badan ugu ma hayso ayay yiraahdeen oo bal ha isticmaasho waa la arki doonaa wixii gobolka ka dhaca dawladda waddanka Ruushka ayaa iyaduna waxay si weyn uga digaysaa in Donald Trump ama dawladda waddanka Mareykanka maamulka gumeystuhu ay adeegsadaan hub wax burburi kara tusaalaha nuclearka waxaana arrintaas ay sheegan hadii ay dhacdo dunidu albaabka inay yeelan doonto dawladda waddanka Iiraan waxaad moodaa hanjabaad walba iyo markaas culeys walba oo dhinac walba laga saaray in markaas ay u suurtagal laayihiin ida waxay doonayaan Mareykanka maamulka gumeystaha Israa'iil Turkiga hadii aynu eegnana sheekooyin cajiib ah ayaa ka bilowday durbaba waxa muuqanaya in markaas goobaha maamulka gumeystuhu ay ka leeyihiin ama ay ku leeyihiin safaradaha caalamka iyo
qunsuliyadu ay weerar ku bilowdeen gaar ahaan wadamada muslimiinta qunsuliyada maamulka gumeystaha ay ku leeyihiin magaalada Istanbul ayaa sidoo kale rag hubaysan weerareen inkastoo tiradooda 3 lagu sheegay markii dambana ay joogteen ciidamada xulafada caloosha u shaqeystayaasha caawinaya wadanka Turkiga laakiin markii dambe 3 qof weerarka qaadeen waxa la weeraray shahiideen isku soo wada duub oo dagaalada soconaya hanjabaada xuutiga iyo waxa la weeraray marka la eego wadamada carabta iyaguna wadnaha farta ku haya sheekadaada ay culus tahay laakiin waa hubaan ayaa la leeyahay hadii dawladda wadanka Mareykanka maamulka gumeystuhu ay weerar culus ku qaadaan gudaha wadanka Iran baab almandab albaabada loo laabi doono guud ahaan bad casna way xirmi doontaa Sacuudi Carabiya isu tag Imaaraadka Carabta wadamada khaliijkuna iska badaya madaafiic in lagu turay gaajo ay u dhiman doona dawladda wadanka Iran ayaa ku hanjabtay si baan ay u duqeyn doonto goobaha korontada iyo biyaha iyo sidoo kale meel walba uu leer ka baxayo arintaasina wadamada khaliijka wali waxa walwal tir badan ay ku haysaa inkastoo wadamada khaliijku hadda yihiin saaxada lagu dagaalamayo dhan walba marka la eego haddana arki maysid iyagoo laga tixgelinayo hatta wada hadalada diblomaasiyadeed ee imanka soconaya inkastoo duqeymo culus ay markaas maanta Mareykanka iyo Israa'iil ay qaadeen waliba meelaha la duqeynayo khibradu waxay leeyihiin goobaha dadka rayidka ayaa la duqeynaya arintana waxay tusaysaa durbaba sida ay u jabaan maamulka gumeystaha Israa'iil iyo dawladda wadanka Mareykanka waa iyaga markii hore lahaayeen dawladda iyo shacabka reer Iran diyaarayaan waan idin soo dhaweynana dartiina ayaan u dagaalkan u galnay maxay buundooyinka iyo tareenada dhulka hoostooda mar u burburinayaan hadii dagaalku ay guul ku sheegteen waxaana la guurinaya Turki waxa la yiri tamar gaar waayay wuxuu yiri qaraare waxaad moodaa Mareykanka si gaar Donald Trump iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu hadda cadaabti gacmahooda ay ku abuurteen inay guranayaan gudaha Israa'iiliyiinta duqeymo culus ayaa ka soconaya oo dhan walba ka imaanaya xogaga reer Lebanon ee gobonimo doonka ayaa iyaguna Israa'iil ku haya mid kamid ah culaysadii ugu badnaa waxaana suurtagal ah sida la leeyahay ciidanka gumeystaha ku sugan koonfurta wadanka Lebanon kabtay ma aragtay inay ka soo carari doonaan duqeymaha daba joog ah ee 3 jiha ka imaanaya Iran Hezbollah iyo sidoo kale xogaga reer Yemen ayaa iyaguna walwal tirabeela ku abuuray malaayiin Israa'iiliyiin oo dhulka hoostiisa ku jirta ayaa iyaguna xaalad ay ku adag tahay inkastoo dawladda wadanka Iran la weerarayo guud ahaanba inay u farmuuqan yihiin goobaha korontada ee maamulka gumeystaha Israa'iil haddana dhinaca kale waxa la weeraraya cadaabta shacabka reer Iran ay dhadhamiyaan mid ka daran inay dhadhamiyi doonaan maamulka gumeystuhu inkastoo Netanyahu uusan kala jeclaynba wixii dhacaba ha dhaceen haddana hadii korontooyinka la isaga guro waxa la weeraraya mas'uuliyiin badan oo Israa'iiliyiin dhulka hoostiisa kuma jiri doonaa Doomsday ama yawmal qiyaamaha ayaa la isku celin doonaa sida muuqata laakiin Iran maadaama ay wadan ballaaran tahay wuxuun ayaa ka haraya nin sare oo dhinaca markaas khubarada siyaasadda wadanka Iran waxa uu sheegay korontada dawladda wadanka Iran wajiye badan inay leedahay laakiin Israa'iil iyo Mareykanka ay wacd ku maray si qaraar inay ugu qomameyn doonaan xadgudubyada iyo duqeymaha ay ka geysteen wadanka Iran waxa ka gadbadu maasintina saaxiibada soo dhawaad wararkan wixii ku soo kordha isha ku haya Magool Media dibitaana kulma doon nabadgelyo